Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu xarig iyo jirdil isugu daray dadka reer Somaliland ee u dhashay Somaliland ka soo jeeday yani dadka Isaaqiyada Bursiga degan Djibouti ee ku dhashay ku barbaaray ka ugu deganaa in maanta la xirxiro si xaafadihii looga raro iyo qaraxyo la bilaabayo la rabo in xaafadaha ay dadkaasi degan yihiin laga bilaabo dadkii xilalka ka hayay dawladda shaqooyinka ciidamada talisyada waxoo dhan in la qabqabto oo la xirxiro jirdil iyo dagaal lagu bilaabo si looga raro loo barakayo dhanka kalena waxaan ka hadli doonaa arinta Guban State waxa loogu yeeray iyo nimankii Awdal State watay ee Gadabuursiga intaas oo sano la cararayay oo beerka laga laaday oo lagu yiri madaxweyne ku-xigeenka Guban State iska qaata maamulaha la idin sameeyay arintaasi oo ay ku kala jabeen dadkii taageeri jiray Awdal State qaarna ay iska taageereen Somaliland qaar kalena ay taageereen dhanka iyo wax loogu yeero dhanka kalena waxaan ka hadli doonaa dagaalkii ciidanka dawladda Somaliland ay ku qaadeen meesha Indhabraale Jabhadda Ciise deganeed sidii loo galay kadib markii ay iska laayeen dad aan waxba galabsan oo dariiqa maray dhanka kalena wixii ka soo kordhay wafdigii Davos joogay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan oo aynu soo koobi doono marka hore barnaamijka share gareey la wadaaga asxaabtada kuna soo biirbarayna bulshada sida YouTube Facebook iyo TikTok iyo Digal TV aan ku bilaabay madaxweynaha Somaliland wuxuu ku sugan yahay Davos waxyaabo fara badan baa u qabsoomay waraysiyo bixiyay isagoo oo ka fogaaday in uu yiraahdo beesha caalamka iyo dadku ugu siinayba inuu gacmaha hoorsado uu yiraahdo waxsiiya laakiin sheegay in maalgashi lagu sameeyo Somaliland sida Reuters qorayso waxay leeyihiin wuxuu la kulmay Eric Trump oo ah ninka maalgashiga u qaabilsan guriga cad isagoo oo markaasi danaynaya Eric Trump in uu ka qayb qaato maalgelinta dekada Berbera iyo dhulka yani beeraha iyo waxyaabahaas sidoo kale wuxuu la kulmay ganacsato waaweyn iyo kambaniyo waaweyn iyo dad corporations iyo shirkado waaweyn xataa qaarkood leeyihiin kooxo waaweyn oo kubadda cagta iyo dad badan oo waliba u badan ganacsato Greega arintaasi oo dawladda Israa'iil ay xil weyn iska saartay sidii ay u qaban lahayd Somaliland ugu loobi kareyn lahayd ama meel kasta ay la soo gudbin lahayd markaasi waxa la filayaa in dhawaan Somaliland maalgashiyo waaweyn lagu sameeyo wadamo fara badan ay aqoonsadaan taas intaas ilaa imika ka soo korodhay waftigii iyo hawlihii halka ku tagneen guul weyn Somaliland ay ka soo gaadhay dhanka kale arinta Guban State baan doonaynaa ka hadlo horta arintan Guban State ama Ismaaciil Cumar Geelle uu ku doonayo arintan waa mid weligeedba soo jirtay halkee bay ka soo bilaabatay xilligii dawladda Carta saamiga Soomaaliya ay ku qaadanayso waxay ku qaadanaysaa dawladda Djibouti inta ciisaha ka degtaa yani waxa weeye Gadabuursi waxay yeelatay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yiri anna 8 xubnood oo ciise ay ugu dara maadaama shirkan anigu maalgeliyay adu wax la meero la murmo samarood way diiday waxay dhahaan anagu 12 yeelan iyaguna 4 yeeshaan Soomaaliya oo dhan waxay ku qasabtay in Ismaaciil Cumar Geelle aan maanta loo oran karin isaga oo waxa soo dhan noo dhisay qaata marar kale inuu sameyn doonaa sidii ku qaata ilaa iyo maalinta ilaa maanta waxa laga soo xulaa gobolka Awdal 8 iyo 8 okay 8 xubnood bay markaa baarlamaanka Soomaaliya ku yeeshaan 8 ciise maanta hadda waxa lagu yiri in waxana Awdal State la yiraahdo socon weeday inaga daaya min fadlakum waxaad sameysaan Guban State ciidan baa laga soo qaaday Soomaaliya danable waxyaabo fara badan ciidankii imka waxa la keenay Djibouti waxana qaar ka mid ah laga soo galinay xadka si markaasi loo yiraahdo waxaan u gorgortamanaa maamulkaasi la yiraahdo Guban State nimankii dhalinyaradii kolka horeba Guban Awdal State la wareegi jirtay waxa la yidhi waxa ma keeni kartaan madaxweyne ku-xigeen qaata madaxweynahana Ciise noqonaya madaxweyne ku-xigeenkana Gadabuursi gobolka Awdal waxa loo qaybsanayaa 50-50 ama Guban State 50% iyo 50% buugi xeer Ciise marka horeba lagu xalaashanay Sayla maantana waxa la keenay maamul goboleed lagu xalaashanay magaaladaasi Sayla inay leeyihiin dadka halka ka soo jeeda meeshii nimankii samaroon way ka gadoodeen
waxay u kala jabeen saddex qaybood qayb waxay taageersan tahay Kuban State hawshooda waxay leeyihiin war wixii lagaga baxay Soomaaliland wuxuu doonaha ahaaday aynu taageerno qolana waxay leedahay Awdal State maadaama oo la diiday waanu ka soo horjeednaa Soomaaliland ma ogolin oo laba qolana waxay leeyihiin dadka ugu badan ee ahlul xalli wal aqdi salaadiin odayaal aqoonyahan dhalinyaro iyo dadka ugu badan ee deegaankaas waxay leeyihiin annagu Kuban State iyo Awdal State midna nooma khuseeyo annagu Soomaaliland baanu dhisanay Soomaaliland baanu ogolnay waana dadka majority-ga ay 90% iyo ka badan ee arrinta taageersan okay haddaba dadkaasi waxa jira dad Djibouti u shaqeynaya laakiin raba dadka dareenkooda inay ka ganacsadaan xilliyo xasaasi ah waxyaabo xasaasi ah wada Maxamed Abiib ka mid yahay xildhibaan meydana ka mid yihiin iyo xildhibaano kale oo dadkii halkii eeg Maxamed Abiib iyo groupkani kama hadlin Kuban State kama hadlin Djibouti faragelintii Soomaaliland ka haysa kama hadlayaan arrintan iyo Soomaaliland halka mana soo saami qaybsiga Soomaaliland in la saxo anigu shakhsiyan dadka leh marmarsiye lagama noqon karo gorgortana lama gelin karo xaq waxay u leeyihiin dadka reer Soomaaliland reer Awdal waa in farta laga saaro maaha isaaqin isku koobo wax walba runtii waan ka soo horjeedaa madaxweyne gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha guurtida taliyaasha ciidamada wasiirada ugu badan xildhibaanada ugu badan no waa qalad Soomaaliland saakuma jirto waan ka soo horjeedaa anigu waan aaminsanahay in la saxo laakiin in dareenka dadka laga ganacsado waa qalad markaad ka hadasho sayla markaad ka hadasho inamadii la laayay ee baabuurka lagala dagay markaad ka hadasho faragelinta Djibouti ay ku hayso Soomaaliland markaad ka hadasho wax kaste sax marka saamiga sheeg oo waxa tiraahdaa niyow reer Awdal idinkoo isku duuban xildhibaanadiini odayaashii salaadiintii iyadoo la isku dhayahay la yiraahdo wani Soomaaliland dheefteeda iyo dibteeda labadaba hal loo sinaado ciidan hadii la qorayo biirsantii inta bartaa la dhigo xubnaha 13 baarlamaanka hal la kordhiyo golayaasha wasiirada iyo meelaha wax lagu kala goynayay fulintu taalo iyo garsoorka wixii halka la dhigo marka si reer Awdal golaha baarlamaanka iyo guurtida markay ku leeyiraahdaan awood ay wax ku bedeli karaan markay galaha wasiiradu 7-8-9 wasiir ku matalayaan iyo hay'aduhu haday toban yihiin ay leeyihiin 4 waa run goboladu way kala tirabadayeen reeruhuna way kala tirabadayeen laakiin saamiga hadana la qaadanaya uu kala fogay saamiga sugeera walo kale ka soo qaadanigu aan ka mid ahay wasiirka maaliyadda wasiirka maaragtay xanaanada xoolaha wasiir shan wasaaradood iyo taliyihii booliiska iyo gudoomiyaha maxkamadda sare aag de waa in hadana beeshii habar jeclaynta in la qaato garxisiinta lama waa qaladaas runtii xaqooga qaatan waa sax laakiin Maxamed Abiib iyo groupkaasi maaha dad arrintaas daacad ka ah waa Ismaaciil ka jeedi ee dadka taasna waa qalad okay haddaba markaynu soo ururino arrinta Kuban State waa arrin la rabo in lagu xalaashado sidii loo kicin lahaa dadkan bulshadana la iskaga horkeelin lahaa dagaal looga fidi lahaa Ismaaciil Cumar Geelle wadankiisa Djibouti sidii uu difaaci lahaa Soomaaliland ay u dumi lahayd waa inta haddaba maxaa la sameeyay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu sameeyay dadkii Djibouti joogay durba ugaarsi baa lagu bilaabay in la xidhxidho dhalinyaro fara badan baa jeelka ugu jirta siyaasiyiin fara badan baa la xidhayaa ciidan fara badan baa halka laga soo celinayaa saasa jirta maalintii dhuudin dhabraala markii inamadii inta la dilay baabuurta lagala dagay meydkoodii la soo dhigay aad iyo aad baan ugu hambalyeynay inta ciidanku kaceen in ay soo burburiyeen la soo qaado badhna la laayo badhna la soo xidho badhna ay baxsadaan halka la soo burburiyo jawaabta ciise barta deganaa aad iyo aad bay ugu ammaanayeen waana guul iyo gobonimo ay sameeyeen dadka reer Awdal maadaama oo sidaa ciidankooda u difaacayo uu garab taagay waa inay aaminaan garab istaagaan halka hawshaana inta lagu maqan yahay arrimaha dibadda
yaanay noo dhuumane waa in dadka reer Somaliland ay u soo jeedsadaan waxa halkaa ka socda barnaamijka sheer gare la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baan ku salaamay